wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska David Cameron ayaa u safraya magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska halkaas oo kala kulmi doono madaxweyne Macron oo kala hadli doono xaaladda ka taagan magaalada Gaza sida ay ku warantay warbaahinta labada dal. Macron iyo Cameron ayaa ka wada hadli doona diiradana saari doona xaaladda dagaalka Israel oo si daba dheeraatay dhiig badanna ku daatay Israelna ay wali soo furan laadahay maxaabiis badan oo halkaas looga haysto. Intaas kadib waxa uu u safrayaa magaalada Roma ee caasimadda dalka Talyaaniga. Mr. David ayaa Talyaaniga kulan kala qaadan doona ra'iisul wasaaraha dalkaasi Meloni. Waxa uu isagana dhankiisa kala hadli doona isla arinta ka taagan magaalada Gaza. Inta uu ku guda jiro safarkiisa wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska David Cameron waxa uu diiradda saari doona sidii loo abuuri lahaa xaalad xalna looga gaari lahaa dagaalka halkaasi ka taagan isagoo si lamid ah ka shaqeyn doono xabad joojin ka dhaqan gasha dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Hamas. Waxa uu sidoo kale diiradda saari doona sida dib looga qaadi lahaa tilaabo dhabaha u horseedaysa in maxaabiista la isdhaafsado.